باركين sidoo kale halkan waa baarkiga ahaa halkan waxa ku yaala laba barkadood ku yaala barkad loogu talagalay xareeta iyo mid loogu talagalay biyaha caadiga ah ee booyadu shubaan ama wakaalada marka mid afkeedii waa tan oo yaani waa tan oo 15 foosto ta kalena afkeeda halkaas ku jira wali laba sameyn marka labada barkadood buu leeyahay Allahumma salli ala wuxuu barandahan ballaaran buu leeyahay marmarada noocaas ayaa loo geliyay wali waa qabyo يعني leerarkii waxyaas oo dhan ka baqayeen marka insha Allah taala marka dhamaadana la wadaagi doona imikana bal waxaan yiri gali doona gudaha hore ayuu socon doona hadii Ilaahay idmo laakiin guriga qaabkan ayuu u eegay halkan baabuur badan bay qaadi kartaa intii la doono la dhigan karaa soo kala beerihi iyo waxyaalahaas laga jaray hadii la idmo guriga halkii laga galiyay ama meenkayd waa kan xaga ma laga galiyay guriga marka guriga laba qaybood buu qaybsan yahay qayb dambe oo family-ga iyo qaybta hore loogu talagalay martida halkan wuxuu ku leeyahay barandaha ballaaran ee la fadhiisan karo daaqadihiisa waa daaqadaadu waa weyn hadii la hadmo way kan marka taa uga soo gasho waa ka ma sha Allah waa ka guriga waxay siligiisu sareeya marka taa soo gasho bidix iyo midig laba albaab waaweyn ayaa ka qaban doona muraayada oo islaadina hadii la hadmo insha Allah wali marka lagu xidhoweeyaan marka labadan albaab hadan kan midigta gallo waa kan qolkan oo fadhiya oo loogu talagalay rag inay isticmaalaan ayaa leeyahay suuligiisii farxalkiisii wixiisina waa wataa oo halkan suuligiisii ku leeyahay ilaa insha Allah taala marka qaybta dambe ee argada wixii xiga family-ga loogu talagalay hadii dumar martiya ay waxyaalo jiraan xagga iyaguna fadhiisanayaan oo iyagana qolkoodii waa kan ama family-gaba aduu gurigu labada fadhi buu leeyahay kan iyo kan labadooduna waxay wadaagaan daaqadaha faraha badan la waaweyn albaabada dhaadheer muraayada ay wadaagaan way halkan baan hore u socon doona gudaha gali doona